بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة موضوعا يقول وحل إلى ذا التفاهة أفك عربات وشيء تلمامية انعدام القيمة والأهمية شيء يقولون قيمة لا يهي أما مضنانا لهين سكة لو حيد هذا ووحد المامية البلاد والغباء هذا صوك ابنه ووح شيء قف بني آدم أمرا قف بني آدم أمرا أما معنى لا أن قيمة لهين موضوع حلقة يا بنتي سبدنا أن أخريه أحد الأخوة يدل لك وقت شيدين يلا أكيد الموضوع يقاب كيو فكرية وأي واحد مدى الدنيا مركز يسكفر أنتي إنه النقضي دقن قرى ولكن دتك هجامين يا إننا نقوم بدن لهين غمض ما أنت الدنيا كالسعودين تيسا بدن وحا هجامين يا نما كرر قلبي أن يوروب قرن جيسا قال يطبناد وحا صوب بالعبمي فيلوسوفي كان ليدادو existentialist أما فلسفة الوجودية وفلسفة دون سينا إلهي الضفرته ووحنا إمك مقاشانا إم بدن لغو واقعه humanism كاليداو بن آدم تنمو إلهي يجريتان كيسا يا آخرة يجريتان كذا يا وحا صدن انت لغا تقول الضفره يا وحا للربا الدنيا دا إن دقن وبن آدم كيساقو سمايسته من صنعه إن لسمايه وحي لدونا مركاه لغو مقعاوه أركتدا سي يوروب bay qarnigii 19aad xoog u hirgashay gaar ahaan filosofkii denmarkiska ahaa ee Søren Kierkegaard markuu bilaabay inuu waxan qoro isagoo waliba isagu isqarinayo under pen name ku qoraya magac mustacaara aan magaciisa rasmiga ah isticmaalaynin waayo waqtiga kiniisadda dawladda ka mid ahayd uu cabsanayay muddo markay socotay laba falsafadood oo kala ka sii dilaacay mid waa nin markii dambe waa shayba laakiin falsafadiisuna waalida una yahayd oo Friedrich Nietzsche la yiraahdo oo Jarmal ah nimankan intooda badani waana falsafa waana udaba waa niman gabiya oo maansayahana oo riwaayadaha qora oo linguistica waxa ka warramay isla markaana philosopherisa Nietzsche wuxuu bilaabay falsafo lagu tilmaamo absurdism maya nihilism waxa yiraahdaan ama nihilism luqada العربية والعدمية والنولش إنه wax value wax qiimo lahayn waxba jirin wax walba uu dafirsan waxa ka sii dilaacay طلب محمد قليها أنو شيء يا قال هذا هبار كغبا ميدان دامين أو فرانسيسا أو ألبرت كامو ليدا هذا أو السينما كاهو قامين هي فلسفة لغة المامو العبثية absurdism وحوا علامة فلسفة ده نين دقح وين سيده oo la yiri buur kor oo markuu cabaar koraba dib u soo dhacaya oo dabeetana shaqada uu wadaya shaqadan uu sheegaya waa maxay waxay leeyihiin bina aadamku jiritaanka ma fahmi karo waxa ku abuuran inuu values iyo dhaqan iyo qiimo iyo ilaah iyo aakhiriye wax raadiyo si natiijo ma gaadhayo marka waxaynu wadnoo dhame waa cabas gaaladan isu awowga isku abtirsatay saddexdan filosofiyan sheegayo
oo qaarkood Nobel Prize lagu siiyey waxaasi oo adab iyo falsafo wada socda ah waxaanu tilmaamaya dudub ahaan waxay leeyihiin noloshu ilaah ma jiro oo aakhira ma jirto oo qiyam iyo values bini aadamku uu leeyahay ma jiro oo wanaag ma jiro oo shar ma jiro oo maxaa jira hadda waxaasoo dhan waa dafirsan yihiin dabeetana waxay leeyihiin ma macna alxayaa noloshu maxay qiimo leedahay qaarkood waxay leeyihiin markaa kuwaasi jawaabahoodu qiimo ma lehe qofku ha iska ictizaalo meelihiisa intuu fadhiisto ha fakero qolana waxay leeyihiin noloshu waa cabase ha la dheelo waa dheeldheelkaa un qiimo kaloo ka dambeeyaa ma jiro labadaa waxaa u cagsiya wixii diin aaminsan u nisbo sheegata alle iyo aakhira inuu jiraan falsafadaasi muddo markay socotay dagaalkii labaad ee dunidu markuu dhammaaday bay midho keentay way midho dhashay waxay isu beddeshay dhaqan iyo suluuku bulshooyinku ay ku dhaqmaan awal aaraa falsafiya oo buugaa ku qoran bay ahayd laakiin marka kan waxay isu beddeshay dhaqan iyo suluuk iyo organizations iyo system iyo nidaamo ilaa xadda dhowaan 2015 baa filosof faransiis ah oo Quebec ku dhashay baa wuxuu qoray buug afka Faransiiska ku qoran la yiraahdo nidaamu tafaaha baa la yiraahdaa bettiness system oo wuxuu tilmaamaya dunida dadka maamula inay yihiin tawaafihdi inta xidiga waana inay taafih yihiin tafaahadi baa system laga dhigay buu leeyahay adduunku systemku u socdaa waa system ah dadkii bila macna ahaaba siyaasadda u haya dadkii bila macna ahaaba dhaqaalaha u haya dadkii bila macna ahaaba hogaaminaya aadanuhuna waa inuu noolaadaa si aan macnaba ku jirin si aan macna ku jirin saalayaal kooban baan idin siinaya saalayaashaasi waxaa ka mid ah مثلا waxaad arkaysaa nin dhalinyaro ah oo maryuu qaadanaya ku mashquula laakiin doorashadiisu ay tahay marada ugu liidata mara dildilaacsan oo jeexjeexan oo caynkana waa ogtiin mara dildilaacsan inaanay nolosha qiimo ku lahayn qof kastoo bini aadama garanaya laakiin haddana markaad tagto sheekh cabdirashiid baabari iyadoo وبارلين مالها كخطبتين هي هنا الصومالية ده مرة جحجحن ستاي سوت تاجي بتنا وحول السؤال بان كويتين يا شيخ أو حضرت ولا الكين أنت أنا سؤال شيء سكت جوابي أو حاجة السوق دردر إنك السروال ويبين نبيل يعني قف بنا آدم والله عكب بحنا يا مرة للدلاعية ووليبا مردا للدلاعية كقيمة بدنتا هاي مركز كل ركبانتي سروال كتشينيسكا وليه هاي هدان للدلاعية هدين للدلاعية وحقا لسي مركا للدلاعية هاوزيت سادو ملايين سامركا بني آدم لبس سروالو اسكو ميدا كدلدلاع سنواكتي سقيمة بدني مركو دورة شسم ايو كا دورنا ايو دانك لو حدر كيسا توافيه دا سيدوني دا إنك روا ينقو صاصع عطاهم بدنا واحينا dad madaxooda iyo timahooda un ka shaqeeyo ku cayaara mid dhanka xiira mid zagzag ku sameeya mid dhowr u sameeya waxay shaqo qabtaan oo dhan wax weeyaan maalinba inuu timaha dhan gooyo mar waa wada xiiraya mar dhan buu xiiraya mar dhowr buu samaysanaya mar sida diigu u samaynaya mar waa kallaraynaya wuxuu ku mashquul yahay markaasaa la leeyahay weliba intuu tago الرئيس لا العق بدن لقى قاضي قوة شيخ سمية والعق عالية ما لو ميدا مسكين كاجن عقفت له قلنا يلا ما قيمها ده دور دون يسام الديك أما واحد لميدا وسيستم وبلغو بولشين يا رنشيا لمرين يا ولا مايريا شغل بدن ما لقى كمانية مركا هو توافيه دو حكاية طيب مثلا ما هذا كيسا سيدو نعم شو مسكاي تلمامي دولة دان أما ومدر دان أما سيستم دان أو نظام الملاهي بني آدم كوسمي إن دتك الله والله الله مشغوليه دون دان أو يسان محل أو يسان
kubad baa laba birood dhex martay. How is it say kula tay aadana dhan oo garoon fadhiya oo ilmadu ka da'ayso oo waxay la ooyayeen ay tahay kubad baa laba birood dhex martay. تيم هبل بقى تيم هبل كبدية ونظام الملاهي كونسرتس نمن بقى هي سيا واجي هره وحلوها سمعنا لها جيرين أدب معنا له نك تاجن هذا دو فرصته وحكوا هالليو قولي يوم كصباحي وضدان صامري قاعد ده جيرة أنت هسوق هالليا ولا سوا حلتهم هي وحوشيء يا رياضة وكوا هالليا ونوعها وأنت هسوشيء dabeetana ummadoo dhan baa soo baxayso dadkoo dhan baa daawanaya waxaynu isweydiinaynaa musaabaqaad baa tviyada ka soo baxa musaabaqaadka ma garanaysaa waxay yihiin tartansiin rida u qurux badan dunida lagu tartamaya markaasaa muxalliliini soo fadhiisanaysaa daymada soomaad arkaynin ridatan iyo say u qurux badnayd bilyanuu ku helayaa riba qurux badan ayga dunida u qurux badan leh rida dunida u eegmada fiican leh adoo qiyaas bini aadam ka shaqaynaya oo lacag lagu bixinayo oo inta la isugu yimaado ri iyo dibi iyo sac iyo ay iyo wax la mid ah laga warramayo waxay dhaahdaan waxa soo kordhay waxay ku tilmaamaan celebrate worships dadka caanka ah oo la caabudo qof baa baxaya shaadh iyo surwaal iyo koofiyad magac ku qoran yahay mujarrad inuu magacaasi ku qoran yahay buu ka qiimo badan yahay dharka kale oo dhan waxay tilmaamayaan saraawiil imika maydaan arag dabada laga xidho waxaa la rabaa nigiska brandkiisa in lagu tuso waa nigiskii Beckham xidhnaa ama Cristiano xidhnaa si lagu tusiyo hebel nigiskiisa aad u xidhato waa in surwaalka hoos loo yara dhigaa dabeetana brand name-ka nigisku waa inuu muuqdaa noloshu markay xadkaa gaadho dadka tawaafihida aad arkayso waa la buunbuuninaya ilaa ay noqdaan mararka qaarkood ilaahyo la caabudo tusaale basiita maalin dhoweyd nin kubadda cayaara oo Ronaldo Cristiano Ronaldo la yiraahdo ayaa soo fadhiistay wuxuu rabaa inuu warbixin dhiibo laba midho Coca-Cola hortiisa yaallo ka qaado dhulku dhiga stock marketkii Coca-Cola 4 billion buu khasaaray 242 bilyan bay joogtay 238 bilyan bay noqotay Cristiano Ronaldo muxuu yahay waa waaxid taafih آخرية دون تونا وحكومة سوكر كبدو الله ذي يقارنا لكن نكا كبدو الله ذي يقارنا هدو كولا هادول كردقو وبيو صاري أي شركات كي دوني دقوا وينا متكمدي 4 بليون ولا حاجة خسارت وتوافيه ده سيدا لو بومبونية بكتو سينيسا لكن كاسوا مظاهرته محاكا الشيء waxaa ka dhashay in dunida suicide-ku ku bato dadku ay garan waayeen waxay u nool yihiin ilaa yahu ay tilmaamto boqolkiiba 40 maxaa la yidhaahdaa 40kii secondba qof bini aadam inuu isdilo oo weliba dadkaasi waa western world-ka dunidan saddexaad iyo dadkan gaajaysan wax badan maaha waa dunida horu martee la sheegayo 40kii second kastaba in qof isdilo waxaa soo baxay self injury disorders waxay yidhaahdaan qoladan acsaabta ka shaqaysa imika xanuuna ay daweeyaan baa jiro la yidhaahdo NSSID waa self injury disorders waa non suicidal self injury disorders waa maxay waxa soo batay dad kale noloshu markay macna beeshay isagaa isku ciilbaxaya markaa wuu isjaraya ama birbu intuu dabka geliyo heat branding isku calaamadinaya ama markuu nolosha ka quusta buu qolo midiya haysata intuu tagaabo odhanaya sawirra igu dhiga kuwan cayaaro Soomaalidan aragay jirkooda wada sawirka madow yahay
وسيستم ككل وقف ربه نلش سي وغريسته إنه كعيل بحجر كيسة ولا دلدلولينية ولا صورية صور بالغدتشينية waxay sameeyaan qaarkood madaxay darbiga ku garaacaan way is dhaawacaan nabarrada caadiga bay u diidaan inuu bogsado qof nabarkii ku yaalay ka fujinaya mar kastaba si aan u bogsanin waayo wuxuu ku leeyahay xanuunkan baan rabaa inaan ku ilaabo dareenka madaxayga haya dunidu inay bilaan nolol tahay nolosha macna darrideeda alam aan isku ilowsiyaan u baahanahay darfar wisko goynaya dadka bay dhahan self harming ka sameeyay ama self hurt ka dadka iyagu is dhaawacaa 10 jeer ilaa 20 jeer bay ka badan yihiin kuwa isdila haddaynu idhi every 40 seconds qof baa isdila markay kuwani 20 jeer ka badan yihiin secondkiiba imsa is dhaawacda waa dhaawacu kasa adigoo ogaan isu dilaya Soomaalida Soomaad maqli jirin koonfurta siiba qolo intay cayaarto tidhaahda waan bururo midi isku jarjarta waa midi isku waa burur nooca u yaala noloshu uu ka quustay dabeetana isaga isku bururayo midi isku googoynaya waxa soo dhamay waxay daba yaalaan erayga aan nolosha macna beeshay nolosha dhadhan la emptiness baan dareemay madnaan baan dareemayaa noloshaan macna lahayn maxaan ka noolay kolleyba waa dhiman doonaaye ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya iyadoo fudud waman acrada can dikri faina lahu maciishatan danka baa ilaah yidhi ciddii ka jeesata aniga xuskayga waxay leedahay maxay nolol aad u cidhiidhiya baa ilaah yidhi waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin ilaahay weynidiisa iyo xuskiisa iyo nolosha jidku u dhigay ka jeesigeedu waxay tilmaamaysaa baa la leeyahay kaa shaydaan baa lamaano looga dhigaa shayaadiin baa waxaan u waxyoota walidaalika baa qur-aanka faatixada ducada ilaahayna baray maalin walba inaynu idhaahnaa waa maxay waa inaynu nolosha macnaheeda fahmniyo xagga loo socdo ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالك كستبا لينيدي واحد ثلاث كنيسان او دكو دعيستا الى وجدك قمنتس dadkani nolosha jidkeedii bay waayeen sida awgeed dadku markuu ruux ahaan madho ghidaa ruuxiya la waayo ilaahay quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa laqad anzalna ilaykum kitaaban fiihi dhikrukum afala tacqiluun laakiin dadku markay madhaan ee jidka ilaahay ka lumaan ee ay garan waayaan waxay u nool yihiin noloshu cabad bay ka noqotaa markaa dheeldheel waa ninkaa dheeldheelaya maryihiisa kolba ku dheeldheelaya madaxiisa ku dheeldheelaya daba socda qof macno liita qof aad u macno liita qof aan noloshu dhadhan u lahayn haba yaraatee waxay tahay nolosha waxa u muhiimsani waa inaad ilaahay garato يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إلهي وحلي يدضوا يا أيها الناس واردضوا حق إلهي وحيدين كي من موعظة وانا إلهي حق سيدين كي إيوه شفاء لما في الصدور ذكرني ثون المدوب كتيرا وأن إنما إفتن كموقنين وأنا قرنين ميل وسعده ساكا هداد بحده أسارت قرنين ميل اللالية ميل أتصعته هدنا أتقصبنتين أتصعته محد ريمي لهي نولش وعينك هداد نوشي وحاد النوشي نارد قرنين ميل أتصعته نارد قرنين وحكاد دنبيا نارد قرنين وأن قد عرقود يبات ميل مدوبات صعته إلهي وحلي وحاصرا موعدا كعاف مادان شفاء لما في الصدور
wixii laab ku jiray wax lagaga caafimaado baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala baa idiin soo dejiyey iyo wahudan waraxma hanuun iyo naxariis laakiin ciddii ilaahay naxariistiisa ka jeesataa waa luntaa dadku inuu sidan u lumo maxaa keenay kow waxaynu leenahay caqiida xumo dadka maanta lagu dayanayo western civilization baa dunida horseed ka ah oo hor socda western civilizationna maanta waxa ugu weyn almadhab الnafci madhabka ah wax walba in maado lagu qiimeeyo oo maxay iga soo gelayo inaad tidhaahdo aadamaha inay maadadu ka qiimo badato aadamaha inay maadadu ka qiimo badato dawladaha horu maray baan laba tusaale idinka siiyey in bini aadamka maadadu ka qiimo badantay kambanigan ford la yidhaahdo ee maraykanka ah ayaa gabadhi soo saaray gabadhidii uu soo saaray baa cillad bireegyadiisiyo wax ku saabsan baa la ogaaday dabeetana waa la suugareeyey waa la ashtakeeyey maxkamaddii dalka maraykan waxay ku xukuntay compensation inuu bixiyaan magdhow oo dadkii shilkaa galay gaadhigiinaa geliyey markaa inaa bixisaan magdhowgii bay aqbaleen shirkaddii baa fadhiisatay waxay isweydiiyeen 12 milyan oo gaadhi baa suuqa ku jira 12 milyan oo gaadhi inaynu soo celinno kharash badan baa ku baxaya baa la yidhi laakiin inaynu dadka layno oo lacagtooda bixinaa ka kharash yar dadka in la laayo oo lacagtooda la bixiyaa ka kharash yar saa daraaddeed waxay go'aansadeen dadka wixii dhimanaya ha dhintaanee compensationkaanu meesha ku haynaynaa waanu uun kii dhintaba oo iska bixinaynaa inaanu kii dhintay beersadka dhimanaya qiimahooda bixinno waxay tilmaamaysaa bay leeyihin aadanuhu valuega uu meesha ku leeyahay qiimaha bini aadamka uu ku leeyahay qolo kale waddankan Polandka la yidhaahdo ayaa malaa sigaarka hala joojiyey waxbaa laga hadlay dabeetana kambaniga sigaarka iibiya wuxuu keenay research baxfi uu leeyahay dawladda waxa u fiican inay sigaarka daasato oo waayo sababtan la leeyahay sigaarku waa sun oo caynkan oo kasar buu keenaa dawladda kharash badan buu ka hayaa shaakil maaha bay leeyihin lacagta idinka soo gelaysaa ka fiican oo sigaarka lacagta ka soo gelaysa dawladda waa maxay waxay dhahdeen marka kharashka koska la eego sigaarku dhibtuu keenaya faa'iidadu keenaya badan maxaa u malaynaysaa faa'iidadu keenaya inay tahay faa'iidada ugu badan ay xisaabiyeen waxa weeyaan dadka sigaarka cabaabay yidhaahdeen 10 sano ay ka da'yar yihiin dadka kale caadiga ah mostly bay yidhaahdeen sida caadiga Yurub benshanka 65 ma lagu galaa dhimashadooda waxay qiyaasaan average inay 78 years tahay 10 sannadood bay dawladdu benshan dadkaas siisaa 10 sannadood bay guryo iyo caafimaad iyo mushahar siisaa intaasaa idinka maranaysa bay yidhaahdeen intii benshankaanu kharajinaynaa dadka haddii sigaarka loo sii daayo waxaa meesha ka baxaya maxay 10 sannadood intii noolaan lahayd macnaheedu waa maxay beesadaa ka qiimo badan qofka bini aadamka ah haddii lagu xaaqi karo oo lagu marin karo oo lacag lagu helayo waa inaad dhimataa qaanuunka dunida u yaalla waa kaa waa inaad dhimataa idan madhabka nafciga ahi ee yurub ay haysato ama ninka cadi u haysto ee xaggana soo faafaya waa madhabkaa keenay waxa qure uu bini aadamku qiimanaya inay maadada noqoto noloshuna inay macno beesho caqiidada iyo diinta iyo aakhira iyo waxaana in la ilaabo ilaahina wuxuuna leeyahay faman yamshi mukibban calaa wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa war ma dadka kuwa madaxa ku socdaa hanuunsan mise kuwa qumaatiga u socda waxaan leenahay noloshu haddii aad garan weydo waxaad u noosho caqiidadu lunto kuwa ugu waaweyn ee aqoon-yahanadee maanta dhallinyaro badan ay daba socoto Richard Dawkins waa professor macruuf oo la yaqaano selfish jin ku caan baxay
ayaa waxa la weydiiyey noloshu maxay qiimo leedahay agtaada nolosheennu maxay qiimo leedahay wuxuu ku jawaabay waa meaningless noloshu macno ma leh idan haddii lagu buufiyo sida quraanjada macno ma leh waayo khayr iyo sharbe ma jiro agtiisa khayr iyo sharbe ma jiro hitler ma la ceebayn karaa bay yidhaahdeen haddaynu saa u egno waxay leeyihin maya haddaynu saa u egno waa maya soo duuduubo jaamacadkan maraykan mid ugu weyn kuwa ugu waaweyn ka mid ah hopkins university ayaa ardada ku jirta waxa la weydiiyey waa maxay waxa ugu fiican aad raadinaysaan boqolkiiba 67 baa waxay ku jawaabeen inaanu nolosha macnaheeda fahmno waxaanu u noolay inaanu garanno qiyaas arday dhan oo jaamacadaha dunida kuwa ugu waaweyn mid ka mida jooga oo le waxa ugu weyn aan rabno inaanu ogaanaa waa inaanu nolosha macnaheeda fahmno maxaa loo nooliyey victor franklin in la yidhaahdaa wuxuu leeyahay ardayda maraykan aan wuxuu dhigo boqolkiiba 55 waxay dareemayaan buu leeyahay inay noloshu macno lahayn inay noloshu empty inay maran tahay saashay isweydiinta le waxa weeyaan dadka maran ku dayanaya iyagoo halkay tegayaan marka ninka nin maran daba socda nin waalan haddaa daba gasho meelaheennan waxaa caan ahaan jiray nin xanuunsanaya oo ama maryo uskagle sita ama maryo dildilaacsan sita ama raamale sita laakiin markaad aragto nin guri ka soo toosay oo lacag haysta oo raamale ama maradiisu dildilaacsan tahay wuxuu matalayaa dowrkii ninkaa waalan unde wuxuu arkaa inay tani macaan tahay tiisaa dhadhan yeelan weyday oo tan ninkaa xanuunsanaya ayaa la macaanaatay waxana waa la sameeyaa maalan bahalkan yaree dhallinyarada ay ku dawakhdee la daawado ee facebookyadan iyo waxa kan khubara ka dambeeya tijaabiye inay bini aadamka sidee baad addicted u noqon lahayd sidee baad soo waxyaabaan maandooriyaasha marka la cabo marka dambe qofku addiction buga idmaan la qabsi buu gaadhaa waxaa ka dambeeya niman waxay yidhahdaan attention engineersku berigii hore style engineerska uu kharash badnaan jiray attention engineerska imanka ka kharash badan bay yidhahdaan style engineerku waa kuwa naagaha iyo ragga kolba dhinaca qaawiya ee maryaha u dildilaaciya iminka kuwa waxaa ka lacag badan injineerada bay yidhahdaan attention engineerska kuwan dadka maankooda gada waxay leeyihin waa engineering ah qofka inta halkaa la qabto ama halkaa lagu dhago in bini aadamka la wadi karo sideen dadka u wadi karnaa raqma anfihi attention engineerskaasi waxay isticmaalaan waxay ku tilmaamaan behavioral psychology waxa dhaqanka bini aadamka psychology-ga ku saabsiisan dabeetana waxaa la isku dayayaa sidii dhaqan lagaagaga dhigi lahaa waxaa inaad ku dhegto aanad ka foqin khubaraha meel u fadhida sidaad addicted u noqon lahayd sidaad mudmin u noqon lahayd waanay ka dhigeen runtii dad badan maanta waxaa laga yaabaa inaanu gamiin haddaan mobilku dhinaciisa oolin bale waxaa laga yaabaa habeenkii hadduu baraarugo inuu eego bal waxii soo dhacay intii hurday waayo waxay gaadheen darajo ah inaanu noolaan karin inuu facebook gala mooyaane dadka ugu badan ee la daawanayaana maxay yihiin waa kuwa bilaa macnaa ah مثلا كريستيانو رونالدو انستغرامkiisa 300 milyan oo bini aadam followerka ayaa daba socda wuxuu ku soo kordhinaya aqoonta uu dunida u waday uu soo kordhinaya maxay tahay ee 300 milyan oo bini aadam ugu xidhan yihiin ee u daba socdaan wuxuu soo qorabay eegayaan xaqiiqadu waxa weeyaan indhahan maaha bini aadamku meeshu beelaa
kuwa la beela waa kuwa kan da'yar badan oo maanta Hargeysa iyo dhulkan degan waxaad moodaa inay beelayaan indhaha hoose inay diin iyo qiyam iyo caqaa'id ay rumaysaneen inay lumayaan inay milmayaan waa imka Hargeysa haddaad dhex marto waxaan is leeyahay dhallinyarada inta dhafoorka xiran la ka badan inta caadiga u xiran haddaan labadaasi dhinac dhigo haddaad weydiiso maxaad u xiratayna qofka jawaabi karaya waxa laga yaabaa inuu ku idhaahdo waa styleka dambe waa qaabka dambe wax ka rooreed inuu idhaahdo waa waalida dambe koox waalatay oo nooca kana ayaa sidan madaxooda ugu faygaray anna waan ku faygaray inuu yidhaahdaaba ka roonay ayuha alaxiba war badan oo tafaaha ah oo waxaa ku saabsiisan 26 page baa halkan ku jira oo ninka baasha diyaariyay uu ii dhiibay 26 pages waxaa ka warramaya laakiin waxaan is leeyahay tafaaha intaas idinkaga filan madnaan intaas idinkaga filan laakiin waa inaynu isweydiino maxaa dawa ah agteenna waxaa qiimuhu ku yaraaday ilaahay kitaabkiisa kitaabkan waxaa soo dejiyey rabu samaawaati walard ilaaha caliimun khabiirka ah dunida tan dhisay waxa u fiican garanaya aadanaha abuuray waxa ku habboon garanaya intaynu kaa dhinac marro ayaynu waxaynu raacaynaa aadanaha kuwii ugu liitay iyagu ay ka qaylinayaan almadhab alcabathi مثلا فيلسوفيا الرميسان فيلسوف تشيك كل شيء باجرة أو أفكار فرانسيسكا وحقوق قرة رواية بوليه وقرية بوقت عنك والله إلى هذا حفلة التفاهة بالله إلى هذا حفلة التفاهة كي هرنا محو قري كي هرنا محو قري النظام التفاهة نعم شو مسكين محو المهمي إلهاج بنا طبعا سيستم باستعمالها بولي الدول كي ضدك هل كان هيا ويأذنها كم مدى داليان سون رشا وقدعه أما سي الله كنترول الله وذكره حصل نسكو صوت ضوضو أداد إلهي الرميسو ورسول كيسي محمد عليه الصلاة والسلام رميسي وأدقرت الدنيا ده واحد وشوكته waad garatid meesha aad ku socoto aakhiro inay dambayso janniya naar inay jiraan siraat in dadku wada mari doono xisaab iyo ciqaabe inay jirto 50 kun oo sannadood in meesha la taagnaan doono bini aadamku dheeldheelkaba uu iska dayn lahaa awgeed buu nabigu wuxuu leeyahay waxaan ogahay haddaa og tihiin in badan baa ooyi lahaydeen in yarna وقصر الله يدبر نبغى تلمامي عليه الصلاة والسلام دي عقيدة دي إنه أي سيد دنته وبديل كون نغضه واللي بدأ يرتان شيء دا يرتو بحال كان أي قالين يقوم مرام بأي قالين ده بتندد مرام بأي لكل ما قفكه دو عقائد دي سيدين تسود سمتي ملمو دول السيء هاي ملمو ويوح الرميسين إنه يسقوا رب السماوات وحو الشاقي هايو صحابة النبي محمد فلسفة ما يقول وعلم مادية ما يقول وصحارها عربات بيكو كورين لكن وحي عقيدة يستين إن يسيدان رب السماوات والأرض كلمة ديسي سيدا وقيد بي آذانها انت كلا وحي واركيين dad u baahan gacan qabasho ay gacan qabtaan ama filosof ha ahaado ama boqor ha ahaado ama mid waxasta ha ahaadee waxay u arkayaan dad lunsan dad indhala oo cid usha u qabata u baahan walidalik baana iyagu lumin way caqiidada bay haysteen materialku qiimo agtooda kama ahayn dadka hadday adduunku agtaada uu ku weynaado kuwa qiimaha beelay baad ku biiraysa
adduun waxay ka joogeen rabciy ibn caamir baa waxaa la yidhaahdaa markii ay bershiya furteen imaam abulxasan الnadawi baa wuxuu soo naqlinayaa bershiya markii la furtay gurigii boqortooyada ee madaa'in markii la galay cunadii loogu tegay waxaa ka mid ahayd kimis si yaro khafiifa loo sameeyey dabeetana qoladani dee waa kii saxaabadu caaisha markii la weydiinayay la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam daqiiqdan la hufay ma cunay maba arag shaandhadaba maanan arag bay tidhi tan lagu sameeye lagu kala shaandheeyaba maanan oqon bay tilmaamaysay markay meesha tageen manaadiil bay moodeen wixii faraha la iska marinayay moodeen waana cunno kimis bay isku dayayaan buu leey waa abulxasan الnadawi ninka soo naqlinaya nimanka khubuska meesha saaran moodaya mindiil faraha la iska mariyaa ayaa haddana dowladdii dunida ugu xoogga badnayd carshigeedii dul fadhiya oo qabsanayay waayo ilaahay bay rumaysnaayeen ilaahay markay dhab u rumeeyeenna nolosha adduunna wuu ugu gargaaray ta aakhirana wuu ugu gargaari doonaa laakiin dadku hadduu dadku ambado oo uu diinta ilaahay ka ambado cidda uu dabagalee soo hadhaysaa waa brofesaradii ugu waaweynaaye joogay oxford iyo cambridge iyo jaamacaday ku faanayeen kuwaa lihi noloshu waa meaningless kaa nolosha meaningless u haysta haddaad ilaahay dhaafsiisato ilaan waa kaa warkiisa kaad ilaahay dhaafsiisanaysaa kaa haddaad ilaahay dhaafsiisato aakhiriya adduunba waad cidhib beelaysaa tafaahada rasmigaana waad ku dhacaysaa inaad qashin noqotaan tabac u ah mid qashina isaguna waxaan jeclahay inaan iska soo koobo maxaan ku koobayaa inaynu dib u xisaabtannaa baynu u baahannahay oo diinteenna dib ugu noqonno oo caqaa'ideenna dib ugu noqonno oo garanno waxa ugu muhiimsan ee dalkan iyo dadkani uu haystaa inuu yahay kitaabkaas ilaahay siduu isaga u xifdin lahaa ee u baran lahaa ee ugu dhaqmi lahaa in loo noqdo intaasaan kusoo koobaya wasala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin